Warbaahinta Al Jazeera ayaa qortay maqaal dheer ay ciwaan uga dhigeen Soomaaliya dalkii gargaarka u diri jiray Sacuudiga. Waxaa maqaalkan qoray Mucaad Maxamed Alxaaji Axmed oo ah qoraa Carbeed u dhashay dhulka Falastiin. Maqaalkan wuxuu ku bilaabanayaa sharaxaad ku aadan xaaladda Soomaaliya ee maanta, oo wuxuu leeyahay waxa laga maqlo dalkaasi haatan ayaa ah burcad badeed, hogaamiye kooxeed, kooxo hubeysan, dambiilayaal hubeysan oo ay adag tahay in maanta wax wanaagsan laga maqlo Soomaaliya. Qorayga waxa uu sheegay in kastoo horumar la taaban karo uu jiro, haddana waxaa weli maskaxda dunida ku qufulan dhibaatada Soomaaliya, oo inteeda badan Soomaaliya tusaale ahaan u soo qaadata dadka dunida markay ka digayaan in dal kale uu qaado waddada burburka. Balse Soomaaliyada maanta wareersan ee kala tagtay dhiigga qabyaaladana dhex dabaalatay weligeed sidaan ma ahaan jirin. Xornimadii kadib Soomaaliya waxaa loogu yeeri jiray Switzerland Afrika, maxaa yeelay dadkeeda waxay lahaayeen xoolo badan iyo beero badan oo wax soo saar fiican leh. Qoraaga waxa uu leeyahay Soomaaliya waxay horumar u ahayd dimuqraadiyadda iyo awoodda si nabada la isugu wareejiyo. Waxay ka horeeyay afgembigii madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre oo dhacay 1969. Qoraaga waxa uu sheegay in nuxurka maqaalkiisa uu yahay in Soomaalida maanta sidaan ay ahaan jireen dad hodana. Qoraaga waxa uu sheegay in nuxurka maqaalkiisa uu yahay in Soomaalida maanta sidaan aysan ahaan jirin, ay ahaan jireen dad hodan ah oo Sacuudiga gaarsiiyey gargaar. Inkastoo uu sheegay in dadka qaar ay doonayaan in arrintaasi ay dafiraan. Qoraaga waxa uu leeyahay inta aan la helin batroolka Sacuudiga wuxuu ahaa dalkaasi mid faqiira, dadkiisana waxay ku noolaayeen timir iyo caano oo kaliya. Waxay taariikhda ku cad in abaar ballaaran ay ku dhufatay Sacuudiga sanadkii 1909, waxayna dadku cuni jireen sida uu xusay qoraaga caleenta si ay noloshooda u badbaadiyaan. Xilligaasi Soomaaliya aad ayay qani u ahaayeen, oo xitaa waxaa la wariyaa in qofka inuu neef qasho uu beerka kaliya ka cuni jiray, inta kalena uu tuuri jiray. Taariikhdu waxay qoraysaa in culimmada Soomaaliyeed ay xilligaasi fadwoodeen in xoolo sadaqa loo diro boqortooyada Sacuudiga, waxaana xigtay in ganacsatada Soomaaliyeed ay bilaabeen in halkaasi u raraan xoolo nool, raashin iyo xitaa dahab. Soomaalida maanta waxay ku sugan tahay xaalad aan wanaagsaneyn. Waxay ahaan jirtay dimuqraadiyad aan xasuusta ka bixi karin, maanta waxay noqotay maamulo yaryar oo kala taagan. Waxay hore u ahaan jireen aag cagaaran oo leh doomo dunida oo dhan u kala gooshto oo kaalmo gaarsiisa, hase yeeshee hadda noqotay dal ay ka jirto gaajo iyo rafaad. Balse taariikhda aan la hilmaami karin ayuu ku soo gabagabeeyey qoraaga warbixintan uu ka diyaariyey Soomaaliya sidii waagi hore ay ahaan jirtay. Warbixintan waxaa lagu qoray Al Jazeera, waxaana turjuntay idaacadda BBC-da. halka uu idin socodsiinaya anigoo ah Gacal Ayman.